بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Axmed Samuel Maxamed kusoo dhawaada casharada xanaan uga hadli doono PHP casharkiisa koowaad PHP maxaa la yiraahdaa marka PHP waxaa la yiraahdaa server side way PHP waa server side PHP marka waxaa loo soo gaabiyaa hypertext preprocessor marka horena waxaa loo soo gaabin jiray personal homepage laakiin hadda waxaa loo soo gaabiyaa hypertext preprocessor PHP waxaan dhahay waa server side waxaa loo isticmaalaa ma aha client side PHP sida HTML iyo JavaScript kuwaasi waa client side laakiin PHP waa server side waxaana lagu dhisaa PHP website-yada dynamic ah iyo web applications-ka iyo sidoo kale website-yada u baahan database sidoo kale PHP waxaa lagu dhex qoraa HTML waa lagu dhex qori karaa si gooni ah iyada waa loo qori karaa haddii aad u baahan tahay website-kaada oo kale tusaale ahaan inaad ku xirto database-kaas wax ku qorto waxna ka soo akhriso oo aad isticmaalayso website waxa qasab ah in PHP aad u isticmaasho luqado kale loo isticmaali karo way jiraan laakiin PHP waa u isticmaali kartaa inaad isku xirto database-kaas iyo website-kaada kugu qornaa HTML iyo CSS waana server side marka PHP maxay ku fiican tahay PHP waa security waaye way fududahay flexibility waaye waana efficiency sidoo kale PHP markii aad code-ka ku qortay aad rangareynayso waxaa qasab ah inaad haysato server computer level haysta server inta ka keena way fududahay waxaa jira application loo isticmaalo Zambia kamid ah app server kamid ah ana hadda waxaan isticmaalaa app server waxaa idin tusaa sida loo soo dejiyo waxaa u baahan tahay inaad halkan tagto halkan inaad tagto kadib Google-ka aad tagto waxaad qoraysaa markaas app server markaad dhahdo waa kana page-ka ugu horeeya ee ku soo baxaa waa appserver.org kadib aad dhex galaysaa waa kana download ayaa ku dhufanaysaa halkan ayaad ka soo degsanaysaa marka uu soo dego kadib waxaa u baahan tahay marka qaar waxa laga yaabaa installation-ka inay kugu adkaato halkan ay kugu qoran tahay installation-ka processes-ka aad marayso dhan waa kan aad ku dhufanaysaa how to install waa kan ana hadda markuu ma soo degsanayo oo igu jira computer-ka hore ayaan u isticmaalay marka soo degsato kadib in uu ku shaqeeyo in kale waxaad ku ogaan kartaa halkan ay tagaysaa waxa ku qoraysaa localhost sidaan hadduu ugu shaqeeyo waxay ka dhigan tahay app server-ka computer-kaada uu ku jira sidoo kale application-ada kale aad isticmaalayso kale serverada kale aad isticmaalayso kale sida Zambia oo kale waxaas la midka ah iyagana ku isticmaali kartaa oo wax dhiba ma laha waxaa u baahanahay markaan hadda code-ka inaan qoro oo PHP-da intay ku qoraa fududahay halkan aad tagaysaa sidaad tagaysaa sida markaas aad tagto waxaa halkan kugu qoran waa kana app server sidaa ku dhufanaysaa kadib waxaa uga sii dhufanaysaa www kadib aan halkan waxaa ka samaystay iska tiraada waa delete gareynaa halkan waxaa ka samaysanaa folder la yiraahdo PHP waa kana folder-kan hadda gudihiisa waxba iguma jira soo ma faaruq waxaa tagaa marka halkan aad tagaa localhost waxaa raacsiinaa PHP waa kana waxaa ii soo baxay mana waxba igu qornaan waxaa rabaa marka in halkan wax ku qorto text oo kale iska dheh waa kana server-ka ku laabo mar kale refresh dheh waa kana uu ii soo galay soo ma text-ayga kadib waxaan u baahanahay in kan aan bedelo rename aan dhaho aan ku qoro lesson 1 casharka koowaad PHP waxaan dhahaa waxay qaadanaysaa extension-ka qaadanaysa waxa waaye .php saas ayaa qasab inaad u raacsiiso
kadib kana furaa waxba iguma qorna hadda laakiin wuu ii diyaarsan yahay faylka halkan aan tagaa refreshan leh waa kana lesson1.php asagaan ku dhufanaa waxba iguma qorna waxaa ii soo baxay page cad waxaan rabaa marka in koodka php-ga aan qoro php-da marka koodkiisa aad qorayso waxaa marka ugu horeysa qoray calaamadda less than kadib calaamad su'aal waxaa qoray php kadib waxaa qoray calaamad su'aal waxaa qoray calaamadda kaweyn saa marka gudihiisa u qortid in shaashadda wax kusoo daawacdo php waxaa loo isticmaali karaa waxaa loo isticmaali karaa inaad isticmaasho echo ama inaad isticmaasho print hadda waxaan isticmaalaa echo kadib waxaan leeyahay hello world semicolon waa kana waxaan leeyahay refresh waa kan hello world way ii soo baxday soo ma waxaan rabaa marka mid kale inaan ku daro mar kalena waxaan leeyahay copy mar kale waxaan qoray hello world soo ma laakiin hello world waa isdaba taalaa laakiin waxaan rabaa in sida fileka uu igu qoran yahay oo kale sida filekan uu igu qoran yahay oo kale in kan kale line kale uu degto waxaan isticmaalaa marka php markaa ku qorayso uma baahna marka qaar html laakiin waxaa fiican in html basica uu ku bilaaban yahay aad wax ka fahansan tahay hadda tusaale ahaan oo kale meeshaan waxaa ku qoraa break syntaxkan html waa la qoraya markii aad qabteen line-kan oo ka dega line kale uu ku bilowdo xarf qoraal aad rabtaa markaa qoraysid qoraal aad rabtid marka line-kan inuu ka dego line kale oo ka bilowdo waxaa la isticmaali jiray br ama break haddana saas oo kale si lamid ah html php waa loo isticmaalaa hadda waxaan leeyahay break line-ka kale ayuu ka bilaabanaa sidoo kale php spacekan waxba kama gelin waa kana intaan space hadaan qoro waan dhaho refresh waa kaasa sida html oo kale waa marka cashirkan wuxuu ahaa cashirka koowaad aan uga hadlayay php waxaan rajeynayaa in wax unaad ka fahantay cashirka iyo muhiimadiisa inta cashirkan cashirka xigaan ka gaari doono waxaa idin leeyahay fi amaan illah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.